faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax xooggan oo maqribnimadii caawa ka dhacay maqaayad ku taala bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya oo lagu magacaabo Blue Sky. afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Muqtaar Oranjo ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu fuliyay qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray oo maqaayadda beegsaday. qaraxa ayaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen 3 ruux waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo kale sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda warfaafinta. Ismaaciil Oranjo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri 3 qof ayaa dhintay 7 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qof naftiis haliga ah uu isku qarxiyay bannaanka maqaayadda Blue Sky. dadka dhintay waxaa ku jira ilmo yar oo caseeye ah oo ilaa haatan meedkiisa aan la aqoonsan. ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ayaa xiray meesha uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid weli sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. hayeeshee al-shabaab ayaa waxay fuliyaan weerarada inta badan ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.